نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله منها وإياكم. walaalayaal, sidaad maqasheen ama aad akrideen, waxa uu ahaa muxaadirada ama muxaadiraadka la jeedin doono ciwaankeedu aljawaab alkaafi ilaa man khaalafa asawaaba fi masaa'il aljihaad. sida idinka muuqata ciwaanka muxaadirada, waxay muxaadiradu biidni illaahi tacaala ay tahay jawaab ay u tahay maxaadiro iyo maxaadiraad laga jeediyey magaalada, ayay u tahay jawaab biidni illaahi tacaala. maxaadirooyinkanana waxay noqon doonaan cardun wa bayaanun limanhaji alxaq wa raddun wa naqdun limanhaji albaatil. waxaa la caddayn doonaa oo lasoo bandhigi doonaa manhajka xaqa ah, waxaana la radin doonaa oo markaa laga jawaabi doonaa manhajka baatilka ah. waayo ahlu sunnaha waxaa lagu yaqaanaa sida cabdiraxmaan ibnu mahdi uu yidhi, yadkuruuna bima lahum wa bima calayhim. waxay tilmaamaan ama ay sheegaan masale kasta ay ka hadlayaan waxa u daliilkaa, waxayna tilmaamaan dadka mukhaalifiinta ee masalada ka soo horjeeda daliishanaya ayay ka jawaabaan. sida ahlulbidaca loogu yaqaano, yadkuruuna bima lahum wayaktumuuna bima calayhim. waxay iyagu tilmaamaan uun oo ay sheegaan masalada ay ka hadlayaan daliilkooda unbay sheegaan, laakiin waxa dadka mukhaalifiinta ay ka hadlayaan ama ay daliishanayaan kama jawaabaan. si markaas calaamaadka ahlu sunnaha loogu yaqaano ayay biidni illaahi tacaala muxaadiradeennu ay ku socon doontaa. marka hore waxaa lasoo bandhigi doonaa adilada masaladaa loo daliishanayo, waxaana laga hadli doonaa oo la radin doonaa dadka mukhaalifiinta waxa ay daliishanayaan. marka intaana shiikha kusoo wareejin ama aan kusoo dhoweyn mikrofoonka, waxaan jeclaystay inaan kelmad kooban aan ka idhaahdo mashruuciyati rad. qofka mukhaalifka ee markaa diinta ilaahay subxaana wa tacaala ku khaldama in la radiyo oo manhajkiisa la caddeeyo inay sharci tahay ayaan biidni illaahi tacaala kelmad kooban ka odhan doonaa. waayo dad fara badan bay iskaga khaldan tahay in qofka la caayo la dhaleeceeyo iyo qofka in la radiyo oo masalada uu ku khaldamay la sheego. dad fara badan bay iskaga khaldan tahay. walaalayaal, waxay culimmadu tilmaamaan in raddiga loo daliishanayo adilada ku soo aroortay alamru bilmacruufi wannahyi cani ilmunkar. adilada ku soo aroortay in wanaagga la ysfaro xumaantana la yska reebo, adilada ku soo aroortay oo dhan ayaa u daliila qofka mukhaalifka ah ee masale ku khaldamay in la radiyo. adiladaasaa loo daliishanayaa. adilo khaasina way ku soo aroortay oo rasuulkeenu sala allahu calayh wasalam saxaabadiisa qaar ka mida markay masaa'il ku khaldameen inuu rasuulku caddeeyey oo aanu ka aamusin. marka qofka doonayaa inuu kala ogaado alfarqu bayna alnasiixati waaltacyiir, qofka in loo nasteexeeyo iyo in la ceebeeyo, qofka raba inuu ogaado faraqa u dhaxeeya waa inuu akriyaa kitaabka la yidhaahdo alfarqu bayna alnasiixati waaltacyiir oo uu qoray ibnu rajab alxambali raxmat ullaahi calayh. waxaa walaalayaal adilada khaaskaa ka mid a in rasuulka sala allahu calayh wasalam ay gabadhi u timi la yidhaahdo faatimata bintu qays, ay ku tiri rasuulka ilaahay waxay iisoo geed fadhiistay oo iga dalbaday inay guursadaan labada nin ee la kala yidhaahdo mucaawiyata ibnu abi sufyaan wa abu jahmin. rasuulku sala allahu calayh wasalam labadii ninba waa uu caddeeyey inta iyo ceebta ay leeyihiin. rasuulku sala allahu alay wasalam wuu caddeeyey oo wuxuu yidhi ama mucaawiyata ibnu abi sufyaan
fasacluukun laa maala lahu. mucaawiyana ka la yidhaahdo waa nin caydha oo wax maalu haysto ma jiro. ninka kalena ee abujahmi la yidhahdo wuxuu tilmaamay rasuulku sala allahu alayh wasalam inuu yahay ama aanu ka dhigin falaa yadacu casaahu can caatiqihi, inaanu garabkiisa aanu usha ka dhigin, oo loola jeedo dumarka ayuu laayaa. xadiiska walaalayaal wuxuu daliil uga yahay qofka khaldama in manhajkiisa la caddeeyo, ama qof allaale iyo qofka masalo ku khaldama in manhajkiisa la caddeeyo. wuxuu daliil u yahay rasuulku sala allahu alayh wasalam labadaa ninba ee gabadhu ay ka dalbatay inuu u tilmaamo ama ugu nasteexeeyo, rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu caddeeyey iinta iyo khaladka ay leeyihiin. wakadalika waxaa u daliila nabigeena sala allahu alayh wasalam nin ayuu ku yidhi kadaba abu sanaabil, abu sanaabil been buu sheegay. markii uu masalo fiqiya ku khaldamay ayuu rasuulku sala allahu alayh wasalam yidhi kadaba abu sanaabil. xadiiskaasuna wuxuu inoo tilmaamayaa qofka khaldama in la caddeeyo oo la yidhaahdo been buu sheegay ama wuu khaldamay ayuu daliilu yahay. wakadalika rasuulkeenu sala allahu alayh wasalam sida markaas ku soo aroortay axaadiista saxiixa in rasuulka sala allahu alayh wasalam isagoo qaswatu xunayn ku socda, saxaabada qaar ka mida oo markaa islaamka ku cusub inay yidhaahdeen ijcal lanaa daata anwaadin kamaa lahum daata anwaad. waxay soo mareen meel ay ka barakaysan jireen, geed ay ka barakaysan jireen mushrikiintu ayay soo mareen. markaasay ku yidhaha rasuulka ilahi waxaad noo yeeshaa annala meel aanu hubka sudhanno oo aanu ka barakaysanno. waa khalad cad oo shay shirkiya ayay ku dhaceen. rasuulku sala allahu alay wasalam kamuu aamusin, waxa uu yidhi inaha sanan, allahu akbar inaha sanan. rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi wladii nafsii biyadihi qultum wladii nafsii biyadihi kama qaalat banuu israa'iila limuusa. wuxuu rasuulku sala allahu alayh wasalam ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaad tidhaahdeen waxay reer bani israa'iil nabiyullaahi muuse ku yidhaahdeen ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha. rasuulku sala allahu alay wasalam khaladkoodii wuu caddeeyey. marka walaalayaal adilada ku soo aroortay qofka khaldamay in manhajkiisa la caddeeyo oo markaa la tilmaamo qofkaasu inuu khaldan yahay, markaa way fara badan yihiin. laakiin waxaan intaa u sheegay si loo kala ogaado oo loo kala farqiyo faraqa u dhaxeeya qof in la caayo wax laga sheego iyo qof khaldamay in manhajkiisa la caddeeyo. faraqa u dhaxeeya inaynu kala garanno ayaan intaas usoo qaatay. biidni illahi tacaala shiikha ayaa kusoo dhowayn doonaa suu markaa muxaadirada aynu usoo diyaar garownay uu markaa shiikhu xafidahu llahu wa tacaala uu markaa u tilmaamo. falyatafadil ishiikhu mashkuuran ma'juuran bihi. markaa shiikhu ha kusoo dhowaado, waadna mahadsantihiin. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. intaa bacdigeed insha allahu sidaa uu ka dhawaajiyey alakh biidn illahi tacaala muxaadarada ciwaankeedu uu yahay aljawaab alkaafi ilaa man khaalafa aلsawaaba fi masaa'il اljihaad
ayaan insha allah biidni illahi tacaala anigoo iska dhici karto ciwaanku waxyaalaha u baahan yahay iyo in badan oo ka mida inaanu siin laakiin biidni illahi tabaaraka wa tacaala inaan waxoogaa ka maarata ka bixiyo insha allah. qasdiguna waxa weeyaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala waa in xaqa la bayaamiyo iyo walitastabiina sabiilu lmujrimiin أهل البدع سي مركز كلا بحان وهي وحدونا يمكن بدن يجرو خلاف بدن يجران خلافين بدن يجران خلافات بدن يجرو إلى الله سبحانه وتعالى تلك مؤمنين تأمر عبرين وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول هذا هو حسوك الأبطال وحسوك الأبطال إلى يرسول الجمعين بإذن الله تعالى يضا قصد قواما هاي شخص qasdigu yahay in xaqa la bayaamiyo muxaadaraadka hore maray waxyaalaha dhacay akhbaada in la tambihiyo la baraarujiyo manhajkiisa lafta la caddeeyo masaladu waxa weeyaan ugu horrayn jihaadka ma loo shardin imaam mise looma shardin intaana su-aashaa ka jawaabin waxaan akriyayaa hadal ku yimi muxaadaradaas la tilmaamay ee muxaadirka hore galay oo masalada u kaga hadlayay hadallada uu muxaadarada ku keenay waxaa ka mid ahayd inuu yidhi laa jihaada ila bilwujuudi wاlإidni اlimaami اlأcظam min ayna lakum hada laa jihaada bimacnaa naafiyat liljins وmin ayna lakum أن كل أنواع الجهاد لا يجوز إلا بإذن الإمام فجهادكم الدعوي لا يجوز إلا بإذنه أما أنكم تقصدون القتال فإذا اعترفوا ذلك فإن لكم هذا أي القتال لا يجوز إلا بإذن الأمير فإذا هجم اللص الصائل على دارك وأراد قتلك فلا يجوز قتاله حتى تستأمر الأمير أما أنكم تقصدون قتال الكفار نقول له من أين لكم دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع أشار ذلك ومن أفتى من علمائنا الأسبقين وهذه المسألة محل الإجماع. خلاصة فردق ugu horeeya caawa إن شاء الله بإذن الله تعالى muxaadarada ay ka hadli doontaa wuxuu ku dul wareegi doonaa hadalkaas iyo su-aasha muxaadarada dhacday oo marka la soo ururiyo noqonaysa eraygan laa jihaada إلا بالوجود والإذن الإمام الأعظم من أين لكم هذا su-aal noocaasa waa ku timi muxaadarada oo macnaheedu uu yahay erayga odhanaya jihaad ma jiro ilaa in la helo oo idan laga haysto imaamkii weynaa mooyaane arrintaas xaggay idinka sugnaatay bimacnaa maxaa u haysataan arrintaas laa jihaada aad tidhahdeen waa bimacnaa naafiyatun liljinsi jinsi bay nafyinaysaa xaggay idinka sugnaatay noocyada jihaadka o dhami inaanay bannaanayn ilaa idanka imaamka mooyaane jihaadkiina dacwadeed ma bannaano idankiisa mooyaane mise waxaa ujeedaan dagaalka sidaa haddaad qirataan xaggee bay idinka sugnaatay dagaal kastaa ama dagaalku inaanu bannaanayn ilaa biidni ilamiir haddii tuugii kusoo weeraro oo daartaada iyo gurigaaga kugu soo weeraro oo uu doono dilkaaga miyaanay bannaanayn inaad disho oo iska difaacdo ilaa aad amiirka ka soo idin dalbayso mise waxaad ujeedaan dagaalkii gaalada lala dagaalamayey waxaan idin leenahay arrinkaasi xagguu idinka sugnaaday min alkitaabi aw min asunnati aw min alijmaaci ashaara dalika wax arrintaa ishaaray waman aftaa min culamaa'ina alasbaqiin yaa fatwooday oo culimadeennii horaa wa hadihi almas'alatu maxallu lijmac mise masaladu waa maxal lagu kulisay oo maxallu ijmac su-aalahaas baan insha allah jecelahay inaan muxaadarada ka galo oo aan albaab uga dhigo jawaabahooda biidni illahi tabaaraka wa tacala نقول مستعينين بالله wuxuu tilmaamay muxaadirkaasi kelmadda laa jihaada bimacnaa naafiyat liljins وmin ayna lakum ana kula anwaci الجihaad la yajuuzu ila biidni الإimam faجihaadكم الdacwi la yajuuz ila biidni am anakum taqsuduuna الqitaala
kelmaddaasi wuxuu yidhi waa naafiyatu liljinsi bimacnaa cumuum bay faa'idaynaysaa jinsiga jihaad oo dhan bay diidaysaa ilaa imaam idan laga helo mooyaane xaggay idinka sugnaatay noocyada jihaadka o dhan inaanay bannaanayn idanka imaamka mooyaane jihaadkii dacwadda markaa ma bannaana imaamkii oo idan laga helo mooyaane tuuggii hadduu gurigaaga kuusoo weeraro inaad iska celiso ma bannaana amiirkii oo idan laga helo mooyaane hadalka noocaasi xagguu idinka sugnaaday daliil min alkitaab aw min asunna mise ijmaac baa ku yimid culimadeenni hore ayaa fatwooday su-aalo noocaasa oo isdaba taxan ayaa muxaadaradii muxaadirku uu soo jeediyey dhacay waxaan leeyahay ugu horrayn biidni illahi tabaaraka wa tacaala khada'a ugu horreeya ee uu ku dhacay muxaadirku wuxuu yahay inaanu fahmin istilaaxa culimada markay idlaaqaan kelimatuljihaad culimadu kelimatuljihaad markay idlaaqaan maada yuqsad maxaa looga qasdinaya maxaa looga jeeda waxaa muhiima qofku inuu fahmo ugu horrayn istilaaxyada culimada intii aanu hadlin oo ilaa wuxuu ku dhacayaa meel lagu siibto iyo simirirxash kelmadda jihaad haddii la idlaaqo ma jihaad dacawiyaa soo guda gelaya ma tuug la iska celinaya saa'il baa soo guda gelaya culimadu maxay uga jeedaan jihaad marka la idlaaqo laa jihaada ilaa biidni limaam marka la leeyahay horta jihaadka maxaa looga jeeda in la fahmo baa muhiima istilaaxaadka culimada taasi waa ta ugu horaysa u ku khada wuxuu u fahmay jihaadka in looga jeedo dacwaddii macal soo guda gelayso marka la idlaaqo oo culimadu ay idlaaqaan dafcu saa'ilka soo guda gelayo kii gaalada soo guda gelayo fahamka noocaasina waa faham khaldan weeyo khata khata inuu yahay waxaa tilmaamaya qaala ibnu rushd caalimkaas la yahdo ibnu rushd wuxuu yidhi isagoo kelimadda ka hadlaya marka la idlaaqo jihaad fakulu man atcama nafsahu fi dati illah faqad jahada fi sabiilih ila ana aljihaada fi sabiili illahi ida uطliqa falaa yaqacu ila cala mujahadati اlkufaari bالsayf xata yadkuluu fi اlislam aw yucdu ljizyata can yadin wahum saakiruun almuqadimaat almumahidaat mujalladka koobaad safxadda 342 sheekaas ibnu rushdi raximah llahu tacaala oo caalim weyn iyo imaam weyn ahaa wuxuu leeyahay mid kasta oo naftiisa daaliya oo ilahay dartii u daaliya kaasi waa jihaaday oo ilahay dartii buu jihaaday laakiinse buu leeyahay jihaadka fii sabiili illahi haddii la idlaaqo oo sidaas la yidhaahdo oo sidaa loo idlaaqo falaa yaqacu ila cala mujaahadati اlkufaari bالsayf wax kale kuma dhacayo muxuunbuu ku dhacayaa dagaalka gaalada lala dagaalamayo ee seefta lagula dagaalamayo iyo hubka lagula dagaalamayo jihaad dacawi ma soo guda gelayo dafcu saa'il ma soo guda gelayso marka jihaad marka la idlaaqo oo sidaa culimadu ay u idlaaqaan waxay uga qasdinayaan jihaadkii gaalada lala jihaadayay ee seefta lagula jihaadayay su-aashaa markaa inuu soo celiyo oo yidhahdo maxaa uga jeedaan dacwaddii ma banaana miya saa'ilkii ma banaana miya waxay ka dhalatay inaanu kelmadda fahmin taasi farx kasta wa ilaa kelmadda hadduu fahmayo istilaaxa culimada iyo waxay uga jeedaan bimacnaa su-aashaa maga soo celiyo taasi waa tanbiih hore kelmadda ku sugan su-aashiisa labaad xaggee buu idinka sugnaaday daliil kitaabka iyo sunnada ama ijmaac ashaaray arrinkaas culimadeennii hore yaa fatwaday masalada miyaa lagu ijmaacay daliiluna min kitaabi illah wa sunnati rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam waqad naqla bacdu alculamaai alijmac cala dalik waqad afta alculamaau xadiidan waqadiima taa jawaabteedu waxay tahay daliilka inaan jihaad jirin ilaa biidni alimaam oo haddii layska jihaado biidni alimaam jihaadkaasi uu noqonayo jihaad lfitn ama qitaalu fitna uu noqonayo oo jihaad aanu noqonayn oo jihaadkii imaam ku xidhan yahay daliiluna min kitaab illah wa min sunnati rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam daliilkaan u haysanaa waxa weeye kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu alayhi wasalam xataa bacd alculamaa baa ijmac soo raraya masalada sidaan arki doono in lagu ijmacsan yahay culamaduna waa fatwoodeen qadiiman wa xadiidan hore iyo dibba waa masale mashhuura oo muqarar ku ah oo ku sugan fi kutub alfiqhi iyo kutubta shuraaxda ee xadiiska dhammaan masale qarsoomi karta oo iska daa nin ahlulcilmi u nisbo sheeganaya xataa aalib alcilmi kama qarsoomi karto waa masale mashhuura fi kutub alfiqhi bay mashhuur ku tahay wa fi kutub alxadiid bay mashhuur ku tahay wa fi kutub alcaqaa'id bay xadiis ku tahay masale qarsoomi karto khaafiya ma saa darteed waxaan leenahay daliilkaygu waa kitaabka alleh iyo sunnada rasuulka sala allahu alayh wasalam culimada barkoodna ijmac bay soo rareen mutaqadimiin iyo mutaakhiriinba waa la fatwooda daliilka qur-aanka aan ku horayno qaala tacala ilah wuxuu yidhi
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا يقاتل في سبيل الله. ilahay wuxuu ka warramay qoladaas subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil ee nebiyullaahi muuse ka dembeeyey. markaasaa nebigoodii waxay ku yidhaahdeen aan jihaadno aan dagaalanne nin boqora noo soo saar. ma iska dagaalami maayo boqor aan la dagaalanno oo aan la dagaal galno noo soo saar bay idhahdeen. saa darteed aayaddaas saa dib ka arki doono culimada qaar baa waxay ka deliishadeen qur'aanka laftiisa inay ku sugan tahay sunnaba intaan la gaadhin jihaadka in imaam loo shardinayo jihaadka imaam u baahan yahay waayo waxay yidhahdeen aan dagaalanay noo soo saar boqor. taasi waa aayadda ugu horaysa oo culimada saa ka fahamteen aan arki doono biidni illahi tabaaraka wa tacala. xagga sunnada nebiga alayhi salaatu wasalaam ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. حتى سنة النبي عليه الصلاة والسلام حديث البخاري ومسلم بايوريان أبي هريرة رضي الله عنه رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة إمامك وقاشان وحكى معه يقاتل من ورائه كذاش سبقت قالوا ويتقى به سقلوا قاشان طلبوا. xadiiskaasi waa xadiis bukhaari iyo muslim labadaba ay weriyeen oo ay isku waafaqsan yihiin xadiiska. xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa oo nas ku yahay imaamku inuu yahay gaashaan laga dagaalamayo gadaashiisa oo isaga lagu gabanayo gabaad laga dhiganayo. bal sharxa culimada xadiiska ay saareen in yaraan ku daro. imaamu nawowi wuxuu raximah llahu tacaala alimaamu junna كسطر لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم من بعض ويحمي بيدة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سلوته. ومعنى يقاتل من ورائه أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج وصائر أهل الفساد والظلم. شرح مسلم شرح صحيح مسلم في إمام النووي مجلد كلابية 8 صفحة لا بقول يصد أي إمام النووي حديث هذا الكلية waa xadiiska ku sharaxaya. imaamna wuxuu yidhi xadiiska ma ku sharaxaya imaamku waa gaashaan waa gabbaad kasat maxaa yeelay cadowga dhibaatada cadowga ayuu muslimiinta ka celinaya. wayamnacu naasa bacdahum min bacd dadkana barba barka kale ayuu ka difaacaya waa la isku tumanaya haddii kale kii xoog weynaa iyo kii xoog yaraa waa la isjiiraya haddaan imaam jirin oo xukun jirin. marka imaamku muslimiintii u difaacaya cadowgu ka difaacaya dadkiina waa kala celinaya. wayaxmii baydata alislaam islaamka baydadiisa iyo buucdiisana waa ilaalinaya. wayataqiihi nnaasu dadkuna waa ku gaashaamanayaan wayakhaafuuna sadwatah qabashadiisana waa ka cabsanayaan. wamacnaa yuqaatalu min waraa'i maxaa looga jeedaa gadaashiisa lagu dagaalamaya waxaa loo jeedaa bu uhi imaamu nawowi yuqaatalu macahu lkufaar isaga maciisa gaalada lagula dagaalamaya waalbugaat kuwii xadgudbay والخوارج وسائر أهل الفساد وظلم iyo dhammaan cid kastoo fasaad iyo dulmi ka shaqaysa imaamka maciisa ayaa lala dagaalamaya. ibnu xajar xadiiska markuu sharaxayay raximah llahu tacala wuxuu liannahu yamnacu alcaduwa min ada lmuslimiin wayakufu adaa bacdihim can bacdin. ibnu xajar wuxuu isna tilmaamayaa hadal macnihiisu yahay wuxuu ka celinayaa oo cadowga ayuu ka celinayaa inay muslimaantii dhibaateeyaan oo dhibaato u geystaan dadkana dhibaatadoodii ayuu barba barka kale ka qabanaya. markaasuu sii caddeeyey wuxuu yihi walmuraadu bilimaam muraadka looga jeedo imaamka maxaa looga qasdinaya saan arki doono muxaadir kuma fahmin macnaha imaamka looga jeedo imaam maxaa looga qasdinaya xagga dambaynu ku tilmaami doonaa baab dhan baynu u caqidnay oo u gunadnay oo imaamka laga hadli doono insha allah. ibnu xajar imaamka markuu tacriifinaya wuxuu yihi walmuraadu bilimaam imaamka waxaa halkan looga jeedaa kullu qaa'imin biumuuri nnaas mid kastoo isu taaga arrimaha dadka mid kastoo arrimaha dadka isu taaga ayaa looga qasdinaya imaamka. su-aal ku saabsan xadiidka masalada ma ku cadiyay mise kuma cadda oo imaamu fawzan la weydiiyey barbaacinayna
ila waxa wanaagsan nusuusta ma aha waxyaalaha muxaadirka aan ku mulaaxadeeyo aad iyo aad ugu arkay waxaa ka mid ah nusuus cid allaale iyo cid sidaa u fahamtay ama sidaa u xujaysatay ama sidaa u daliishatay aanu sheegayn kaannahu yucabiru nusuusa bicaqli waxaad moodaysaa nusuusta inuu ku cabiriyo caqligiisa wax allaale iyo wax istelefa uga horreeyey oo naska sidaa u fasiray ma keenayo meel unbu iska saaraya taasina waa ceeb waa inaad nusuusta aad aimada uga dambaysaa tafsiirkooda iyo sharxooda bal xadiiskani nas ba ku yahay masalada mise kuma aha imaam alfawzan baa ka soo horreeya hadda biidni illah fawzan baa waxa la weydiiyey alxadiid aladi fi lbukhaari inama alimamu junnatun yuqatalu min waraa'ihi wayutaqى bih hal hada alxadiidu daliilu calى qawli man yaqulu la budda min raayatin yarfacuha alimaam wayacquduha liljihaad الجواب نعم هذا نص في الموضوع أن الإمام جنة يعني سترة للمسلمين يتسترون به من عدوهم ويقاتلون من ورائه يعني من وراء هذه الجنة لا شك أن قيادة المسلمين وإمام المسلمين نعمة عظيمة للمسلمين يقاتلون معه ويقودهم ويدبرهم ويرى الرأي السديد لهم ويختار لهم فالإمام نعمة من الله الإمام يقيم الحدود الإمام يؤدي الحقوق إلى المظلومين الإمام يؤدي الحقوق إلى المظلومين الإمام يرصد الله به الأمن على البلاد الإمام نعمة من الله عز وجل هذا الكاس فتاوى فوزان وقصة حديث مسألة نسمى كلها يمسكوا معها كتب هذا ما صور رئيس إجابات مهمة كتاب رياضة في المسائل الملمة وكاملة الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية والكيانية كتب ربضا ومسائل كالجهات كهذا الشهر أي فتاوى إمامك فوزان صور رئيس وعلى ودي xadiiska bukhaariga ku sugan ee odhanaya inama alimaamu junnatun imaamku waa gaashaan wax kale maha gadaashiisa laga dagaalamaya waa lagu gabanaya xadiiskaasi daliil mau yahay kuwa odhanaya jihaadkii waxaa laga maarmaana calan imaamku kor u qaadayo oo imaamku guntayo oo jihaadka u guntayo aljawaab markaas ui nacam ahi hada nasun fi lmawduuc nas xadiiskaasi wuxuu nas ku yahay oo ku cad yahay mawduuca iyo masalada أن الإمام جنة إمامك وقاشان يعني سترة للمسلمين مسلمين في قاشان بويا يتسترون به وكو قاشان منيا وسكو أسطريا من عدوهم بس كو أسطريا ويقاتلون من وراء قداش كتقالميا من وراء هذه الجنة بانوتي ذا قاشان كدريس كتقالميا لا شك مركاسوري أن قيادة المسلمين وإمام المسلمين نعمة عظيمة للمسلمين شككم أجلوا وقال كمسلمين هي إمام كمسلمين إنه يهين معوين ومسلمين توصبا ay markaa la dagaalamayaan maciisa la dagaalamayaan gaalada oo markaa uu hogaaminayo oo arrimaha markaa u deberayo o u maamulayo oo ra'yiga sadiidka toosan u arkayo o u dooranayo falimaamu nicmatun min allah imaamku waa nicmo xagga ilaahay alimaamu yuqiimu lxuduud xuduuddii buu oogaya alimaamu yu'addi lxuquuq xuquuqdii buu u gudaya ila almadluumi kuwa la dulmiyey alimaam yabsudu allahu bihi alamna cala albilaadi ilaahay subxaana wa tacala amniga iyo nabadgelyada ayuu isaga sababtiisa arlada ku fidinaya alimaamu nicmatun min allah imaamku waa nimco xagga ilahay kayimi subxana wataala wuxuu tasriixinayaa saalix ibn fawzan xadiiskaasi inuu nas ku yahay masalada oo jihaadka ay laga maarmaan tahay in la helo raayo iyo calan calankaana uu guntayo imaamku guntayo dagaal bilaa raaya oo aan raayaba ku hoos jirin oo imaam ku hoos jirin laysa min aljihaad fi shay daliilka kale oo sunada ka mid ah waa xadiiska ay wariyeen shaykhaanku xadiiskii xudayfa macruufka ahaa qaala qultu ya rasuula allah fama taraa in adrakanii dalik qala talzamu jamacaة اlmuslimiina waimamahum faqultu fain lam takun lahum jamacaة wala imam qala faاctazil tilka alfirqa kulaha walow an tacadى calى asli shajaraة xatى yaأtiyaka almowt waanta calى dalik xadiiskaa iska macruufka ah oo xadiiskii dheeraa markii xudayfa u yihi maxaan sameeyaa rasuulka ilaahayow nebigu wuxuu ku yihi alayhi الsalaatu wasalaam waxaad laazimaysaa jamaacada muslimiinta ad laazimaysaa jamaacada muslimiinta baad laazimaysaa jamacada muslimiinta ha ka dhex bixi jamaacada maxaa looga jeedaa waa kooxaha yar yar ee kala tafararudsan baa looga jeeda ee xagga diinta ku kala tagtagsan isku hayasta la sidaa looga qasin mayo lakin jamaacada waxaa looga jeedaa sida ahlucilmigaan ka soo rari doona ay tilmaami doonaan waxaa looga jeedaa
waa ciddii ku kulansan suldaan iyo amiir iyo madax ku kulansan waa jamaacada ku kulantay cid markaa ay doorteen oo beeco la gashay oo cid ay doorteen jamaacada sidaa ku kulansan ayaa markaasi loo jeeda oo jamaacadii dawladda iyo markaas suldaankii iyo madaxdii waxaas markaasi sidaa ku kulansan ayaa markaasi loo jeeda xadiiskaas haddii aan jamaaca jirin imaamna aanay muslimiintu lahayn jamaacana aanay lahayn oo kala tafaraaruqaan oo madaxba aanay haysan iska kala googo-aan maxaa la samaynaya rasuulku wuxu uhi alayhi الsalaatu wasalaam qaala faاctasil tilka alfiraqa kulaha dhammaan firaqaas oo dhan waxaasoo dhan ka dheerooba nabigu uri alayh الsalatu wasalaam walaw anta cabda calى asfi shajaratin xataa yaatiyaka almawt wa anta calى dalik haba noqoto inaad geed intaad qaninto xitaa hadday ahaanayso baa nebigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam intaas geed iska qaninto oo geed jiridiisa qaninto in mawtku halkaa kugu imanayo adoo saa kuso waxaaso dhan ka dheer oo ka dhex googaasoo dhan ka dhex xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa muslimiintii hadday imaam waayaan oo jamaacadoodii imaamka lahayd la waayo bimacnaa markaas wax jihaada soconaya ma jiraan nebigu jihaad ma odhan qofkaa kulama talin saxaabigaa kulama talin nebigu dagaalan ma odhan keligaa dagaalan laakiin wuxuu kula teliyey muslimiintii hadday googo-aan oo imaam la waayo oo jamaacadoodii la waayo oo muslimiintii kala tafaraaruqaan ahy maxaa nebigu kula teliyey alayh الsalaatu wasalaam faاctasil tilka alfiraqa kulaha firaqaasoo dhan ka dheerooba nebigu uri alayh الsalatu wasalaam ahy hadda xaaladdu hadday kula gaadhayso geed intaad jiridiisa iska qaninto halkaa in malakumoodka kugu imanayo halkaad ku dhimanayso arrintu intaa ka wada xadiiskaas wuxuu tilmaamayaa sidaasi markay dhacdo oo imaamkii la waayo oo muslimiinta sidaa ay u kala tafaraaruqaan oo imaam la waayo imaamka waa sheegi doona maxaa looga jeeda ma imaamka weyn un baa looga jeeda mise kuwii yar yaraana waa gudagelayaan iyo madaxda waa gudagelaya waa gudagelaya marka muslimiintii markay googo-aan oo imaamkii la waayo oo sidaa loo kala tafaraaruqo nebigu ma odhan jihaad saxaabiga kulama talin lakin wuxu yhi waxaas oo ka dhex geed iska qanin muxaadirka xadiiskaa ta'wiil badan buu ku dhuftay aad iyo aad buu macnihii xadiiska uga hadlayay marka waan ku mulaaxadayn doonaa biidn illahi tacaala suduurta soo socota biidn illahi tacaala ayaan markaas ku mulaaxadayn doona insha allah ibnu xajar wuxuu yidhi isagoo dabari ka soo raraya qaala dabari wالصawaabu أن المراد من الخبر لزوم جماعة الذين هم في طاعة من اجتمعوا على تأميره فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة جماعada maxaa looga jeeda ma kooxaha yar yar ee diinta isku haystay ee ku tafaraaruqan baa looga jeeda haddaydoonu daa'ifatu lmansuura baa ku jirta mise waxaa looga jeedaa jamaacadii maamulka iyo mulkiga lahayd iyo saldanada lahayd oo amiir iyo madax ku xidhan baa looga jeeda bal dabari dhegeyso wuxuu yidhi sawaabku waxa weeye ana almuraada min alkhabari muraadka looga jeedo khabarka iyo xadiiska waxaa looga jeedaa luzuumu jamaacati aladiina hum fii طaacati man ijtamacuu cala ta'miini in la laasimo jamaacada ku guda jirta adeecitaan cid ay ku kulmeen inay madax ka dhigtaan jamaacada la laasimaya waa jamaacadii ku guda jirtay adeecitaan ay adeecayaan cid ay madax ka dhigteen faman nakasa biicatahu amiirkaa markaa ay doorteen muslimiintu ee ku kulmeen qofkii beecadiisa buriyey kharaja can iljamaca kaasi jamacadii buu ka baxay kaasi jamaacadii buu ka baxay googa buu la yimid tafar marka hadalka dabari wuxuu caddaynayaa jamaacada loo jeedaa ma aha jamaaca la odhan karo daa'ifatu lmansuura mi xaggaa laga maraya miyaa laga tegaya ahy oo nebigu alayhi الsalaatu wasalaam marka uu yidhi waxanba ka dheerow dee daa'ifatu lmansuura kuma jirin oo daa'ifatu lmansuura dee nebigu ma yidhahdeen ka dheerow kooxo diineed ba looga jeedo ee waxaa loo jeedaa haddii dawlad la waayo oo amiir la waayo oo muslimiinta saa u kala gogo-aan ahy oo cid markaa muslimiinta ku kulansan yihiin oo madax u ah la waayo oo sidaa loo kala tafaraaruqo oo iniba gaar isaga godo iyadoo bilaa madax waxaasoo ad ka dheeraanaysa marka halkaasa xadiis ku hadlaya lakin daa'ifatu lmansuura iyo xaggaa laga yeelayaay kooxihii bidcada laga dheeraanayaay daa'ifatu lmansuura nebigu ma sheeginayo waa ta'wiilaadka uu muxaadirku ku dhuftay xadiiska ay kamid kooxo diineed ba laga hadlay xadiisku wuxuu ka hadlayaa kooxdii weyneyd ee muslimiinta ee amiir ku kulansanayd iyo cid ay beeca la galeen iyo cid ay adeecayeen taa haddii la waayo oo amiirkii laga baqo oo kooxa kooxa loo baqo waxaasuna waad ka dheeraanaysa waxaasuna waad ka dheeraanaysa
xadiiska waxaa ku sugan waa ibnu xajar wuxuu kala tilmaamay wuxuu yidhi وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. ابن حجر wuxuu yidhi isagoo fawaaidka xadiiska hadlaya xadiiska waxaa ku sugan dadka haddaanu imaam usugnaado oo imaam ay waayaan iyo amiir oo dabeedna ay kala tafaraaruqaan axzaab iyo koox koox noqdaan axadna qofka ku raaci maayo tafaraaruqa anigu jamacadaan ku geraya jamacadaan ku geraya ohan maayo wayactazilu ljamiica wax oo dhan ba waa ka dheeranaya in istadaaca dalika hadduu awoodo khashyatan min alwuquuci fi shar isagoo ka cabsanaya inuu shar ku dhaco mar haddii madax la waayo oo sidaa loo kala gogo waxaaba waad ka dhex baxsa waa sida xadiisku amriyo riwaayad kale waxaa ku timi oo xadiiska ka mid ah oo albani saxiixada uu ku keenayo rasuulku wuxu yhi alayh الsalaatu wasalaam wain ra'ayta ywmaidin lilahi caza wajala fi lardi khaliifa falzimhu haddaad maalintaa ilahay dhulka ugu aragto wax khaliifa ah kaa laazim wain daraba dahraka waahada maalak dhabarkaaga ha garac oo maalkaaga ha qaato wain lam tara khaliifatan fahrab fi lard xataa yudrikaka almowt waanta caadun cala jildi shajara haddii markaas aanad arag oo wax khaliifa aanad arag carab oo dhulka gudihiisa ku carar ilaa iyo malakumoodku uu kuugu imanayo adoo markaa geed qaniinayo oo jiridiisa markaa ka qabay riwaayaddaas waa saxiix albani saxiixadu ku keenaya oo saxiixay albani xadiiska markuu sharaxayay raximah llahu tacala wuxuu yidhi xadiisun cadiimu shani min aclaami nubuwati sala allahu alayh wasalam ونصحه لأمته ما أحوج المسلمين إليه الخلاص من الفرقة والحزبية التي فرقت جمعه وشتت شمله وأذهبت شوكته وكان من ذلك من أسباب تمكن العدو منهم مصداقا قوله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. علامة الألباني حديث كما الشرح يوحي حديثا وحديث عين عظيم ووين أرين في سوين يعني على مدينة من مدن كمد يعني استحاد النبي محمد سوون استحاد يكمد يعني وحا مسلمين تمام فوقبها بدل حديث كان وقبها عن تفرارها هي حزبية هي كوحة taasoo markaa kala kaxaysay jamacoodii isku duubnidoodiina kala geysay awooddoodii tagsiisay arrinkaasi markaa wuxuu noqday asbaabaha iyo sababaha cadowgu muslimiinta ku qabsaday taasina waxay rumaynaysaa qawluhu tacala walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum ilahay wuxu uhi subxaana wa tacaala walaa tanaazacuu fatafshaluu watadhaba riixukum hamurmina oo ha iskhilaafinina haddaad sidaa samaysaan waa fashilmaysaan awooddiina watigisa imaamu nawowi xadiiska markuu ka hadlayay wuxuu yihi wa fii xadiisi xudayfa hada xadiiska xudayfa oo kana waxaa ku sugan lusuumu jamacati lmuslimiina waimamihim wawujubi طaacatihi wain fasaqa wacamila almacaasi min akhdi اlamwal wagayri dalika fatajibu طaacatuhu bigayri macsiyati wuxuu yidhi xadiiska xudayfa oo kana waxaa ku sugan jamacada muslimiinta in la laasimo iyo imaamkooda iyo inay waajib tahay in la ateeco imaamkii faasiqnimada ha sameeyo macaasiba ha sameeyo meelaha muxaadirku iska dhex galay ayaa waxaa ka mid ah inuu markaasi aaminsan yahay oo hadalladiisa ay ku jirto amiirkii hadduu ku dhaco macsi ku dhaco hal macsi hadduu ku dhaco bimacnaa wuxuu leeyahay laa taacata nebigu laa taacata buy waa naafiyatu liljins marka hal macsi hadduu ku dhaco laa taacata buy wax allaaliya wax daacaa mid yar iyo mid weyn midna ma yeelanayo hal macsi hadduu ku dhaco sidaa ayaa qaba waa madhab lkhawaarij waa caynu madhab lkhawaarij waa madhabkii khawaarijta caynteeda macsi yar hadduu amiirka ku dhaco macsidaan lagu adeecay lakin wixii kala dacaa waa lagu adeecay isaga wuxu leeyahy wax dacaaba male hal macsi hadduu ku dhaco yar khalaas halkeeda damanka ka hadli doona insha alla bidila marka imaamu nawowi wuxuu tilmaamayaa inay waajib tahay daacadiisii faasiqnimaba ha sameeyo macaasiba ha sameeyo maalka ha qaato iyo wixii lamid ah waxaa waajiba in la adeeco oo wixi aan macsi ahayn lagu adeeco sharxu muslimka mujaladka 12 safxadda 450 waxyaalaha ta'wiilaadka ee uu xadiiska ku dhuftay muxaadirku waxaa ka mida wuxuu yidhi dad baa usoo xujaystay xadiiskan usoo daliishanaya jihaadkii in imaam loo shardinayo haddii imaam la waayo in qofku dhulkiisaa ku dhuumanayo oo markaasi aanu jihaadin markaasa wuxuu yidhi xadiiskan xadiiskii kale laa tazaalu daa'ifa iyo xadiiskan uu iska hor keena xadiiskii nebigu yihi alayhi salaatu wasalaam koox ummadayda ka midi ka suuli mayso inay xaqa ku taagan yihin xaqa ku dagaalamayaan koox ummadayda ka midi ka suuli mayso inay xaqa ku taagan yihiin oo xaqa ku dagaalamayaan ilaa qiyaamada laga gaadhayo markaasaa wuxuu yihi daa'ifadaa waa laga soo reebaya oo daa'ifadaas iyagu waa dagaalamayaan xadiiska markaa maxaa lagu xambaaraya wixii aan daa'ifada ahayn baa lagu xambaaraya daa'ifadaa waa laga soo reebaya ama waa laga khasisaya ama waa laga istisnoonaya
oo qofkii hadduu daa'ifadii ka tegi maayo oo lama amrin daa'ifadii mansuurada ahayd inuu ka dheeraado lama amrine waa qofkii daa'ifadu ka qabsoontay kooxda garan waayey way ka dheeraanayaan o ama intii kalaa dheeraanaysa kooxdan iyagu dheeraan maayaan daa'ifada waa laga soo reebaya ama waxaa laga dheeraanayaa dee daa'ifadii kollayba maahe waxa weeyaan waa qoladii xadiiska xagga hore lagu sheegay ducaatu cala abwaabi jahannam waa kuwii ku yeedhaya albaabada jahannama iyo wixii la mida waa firaqu dabarka wejiya noocaas oo ilaa 3 ayuu markaasi xadiiska ku awilay oo markaasi uu ku taxriifiyey cid uga horaysana ma jiro cid uu ka soo naqlinayo waa xadiiska labada xadiis sidaa intay isugu geeyeen sidaa u kala khasisay ama sidaa u kala istisnooday sida uu sheegayo ama xadiiska ku xambaartay firaqu dalaal ku xambaartay ma sheegin ra'yi mujarrad buu ku duubay wuxuu sidaa sidaasa loo kala geliyaa kana sidaasa loo geliyaa kana sidaasa loo geliya kana sidaasa loo geliya waxaan markaa tilmaamayaa xadiiska nebigu alayh الsalaatu wasalaam nas buu ku yahay fain lam takun jamaacat walaa imaam haddaan jamaaca jirin imaamna jirin soma jamaaca haddaana jirin imaamna aanu jirin faاctazil tilka alfiraq ishaaradu xaggay u noqonaysaa waxaa aad u yaab badan ishaarada qaar ba waxay u celiyeen waxay yidhahdeen waxay u noqonaysaa meel hore oo lasoo dhaafay oo ducaatu cala abwaabi jahannam kuwa laga dheeraanayo ishaarada ku dhacaysa faاctazil tilka alfiraq ishaaradaas waxay ku dhacaysaa ducaatu cala abwaabi jahannam xagga hore lagu soo sheegay kuwaasa laga dheeraanayo oo halkaa fog intaad geynayso ishaarada halkeeda dhow maxaa ku jida inaad celiso ilaa asalka hadalka waxa weeyaan in loo celiyo wixii ugu dhow marka intaad halkaa fog u celinayso maxaa kugu kalifay oo kugu xambaaray daliilka markaa aad ku u celisay xaggaa fog ugu celisay oo xaggan fog aad kaga kaxaysay buxi ma bilaa daliil ishaarada waxay ku dhacaysaa fain lam takun jamacatun walaa imaam jamaaca iyo imaam hadii la waayo muslimiinta jamaacadoodii iyo imaamkoodii haddii la waayo oo sida ay u kala tafaraaruqaan biduuni imaamin saa u kala tafaraaruqaan markaasaa laga dheeranaya laakin maaha ducaatu abwaabi jahannama laga dheeranaya kuwii kalena daa'ifatu muslima laga dheeraan maayo tafriiqa noocaasi laa daliila wax daliila male qolyo kale ayana waxay yidhahdeen alfirq asha ku jirta baa noogu daliila oo ashani waa cahdiyo waa qolo markii hore lasoo sheegay waa ducaatu cala abwaabi jahannam taana culimadu waa bushiya wax firqa lama soo sheegin ashani waa jinsiya wey dhammaan firq o dhan baa laga dheeranaya mar haddii jamaacadii iyo imaamkii la waayey wax allaaliyo wixii firqa waa laga dheeranaya wax allaaliyo wixii firqa waa laga dheeranaya alkhulaasa labada xadiis oo iska hor keenaya iskama hor imanayaan oo midba meel buu ku socdaa midba meel ayuu markaas ku yahay riwaayadda albani uu keenayo ee saxiixada ku keenayo fain lam tara khaliifatan omaartad khaliifa haddaad arki weydo o dhulka ilahay khaliifa ugu arki weydo haddaad dhulka ilahay khaliifa ugu aragto khaliifadaa laazim dhabarkaa kaa garac maalkaa kaa qaato haddaad ilahay wax khaliifaa dhulka ugu arki weydo dhulkaa u car baa nebigu yuri alayh isalatu wasalaam omaart riwaayaddaasa caddaynaysa haddaad ilahay dhulka khaliifo ugu arki weydo dhulkaa u carar baa nebigu yuri alayh isalatu wasalaam ama noqoto markaasi adoo geed markaasi qaniinsan in mawdka ku yimaado alkhulaasa xadiiska xudayfana haddii amiir la waayo oo jamacadii muslimiinta la waayo bimacnaa culimadu waxay ka daliishadeen isagana markaasi inaa markaasi jihaad markaasi jihaadkii loo shardinayo imaam loo shardinayo oo xadiiska markaa nebigu wuxuu tilmaamay haddii jamaca la waayo iyo imaam la waayo in qof iska cararayo culimada badan markaa ijmaca soo rortay waxaa ka mid a xadiiskii nebiga alayh isalaatu wasalaam adilada sunada ku timid ee jihaadka u shardinaysa imaamka xadiiskii rasuulka alayh isalaatu wasalaam ee saxiixa ah ida stunfirtum fanfiruu marka imaamkii idinka dalbo inaad jihaadka u baxdaan baxa baa nebigu yuri alayh isalatu wasalaam imaamkii marka uu idinka dalbo jihaadka inuu baxdaan baxa waa shardi mafhuumu shardi shardigaa waxaa laga fahmayaa imaamkii haddaanu dadkii ka dalbin inay jihaadka u baxaan ila markuu idinka dalbo baxa baa la yidhi manduuqa xadiisku waa sidaas mafhuumkiisuna mafhuum shardiguna waxa weeye haddaan imaamkii dalbin oo ka dalbin dadka inay jihaadka u baxaan inaan la baxayn wa mafhuumu shardina waa xuja cala alqawli araajix qawlka raajica mafhuumu shardigu waa xujo ilaa wadaadka abubakr albaqirani iyo qolyo noocaasa mooyaane oo isna qawl daciif ah mooyaane mafhuumu shardi waa xujo wey xadiiskaasi marka wuxuu tilmaamaya imaamkii hadduu dalbo
jihaadki in loo baxay in la baxay haddii kalena mafhuumku waxa weeye inaan loo baxayn oo jihaadki loo baxay intaa markaan kaga gudbina adilada qur-aanka iyo sunnada culimada ijmaaca tilmaantay ee in imaamkii jihaadkii imaam loo shardinayo ijmaca soo rartay waxaa ka mid ah cubayd aljaabiri cubayd aljaabiri waxa uu ka mid ahaa ardaydii ibnu baaz min talabati ibni baaz culimada madiina ayuu ka mid ahaa culimadii markaa iyo mashaayikhdii jaamicadda wax ka dhigi jirtay ee saabiqan hore ayuu markaas ka mid ahaa sheikaas wuxuu yihi أنه ليس لأحد كائنا من كان أن يدعو إلى الجهاد بنفسه دون ولي الأمر من المسلمين فإن دعوة إلى الجهاد وتجنيد الجنود وتجيش الجيوش ودعوة إلى نفر العام من خصائص ولي الأمر ومن مهامه وواجباته باتفاق من يعتد بقوله من أئمة الهدى فأئمة أهل السنة حينما يؤلفون الكتب ويصنفون المصنفات التي يدونون فيها ما يجب اعتقاده فإنهم يذكرون ذلك ضمن مصنفاتهم أعني كون الدعوة إلى الجهاد من خصائص ولي الأمر وعليه عبيد الجابري أنه ليس لأحد كائنا من كان عندنا وماها كو دون عنه كو الله عليه كو دون عنه وحو دون عنه عندنا وماها أن يدعو إلى الجهاد بنفسه نفسي سيئل الجهاد كبابه دون ولي الأمر يضع عنه مسؤول كياني وقين مضحت يعني وقين ولي الأمر كياني وقين إنه الجهاد كبابه عندنا وبنا ولي الأمر كمسلمين كياني وقين فإن دعوة إلى الجهاد ولا كبابه وتجنيد الجنود عيد مدي ولا ورية وتجيد الجيوش دي أسكتي ولا ديارية ودعوة إلى نفر العام بحيتان قود وضدك لو يرى وحاصل لي من خصائص ولي الأمر ولي الأمر أسكت حاجة ضدك يا أفراد ضدك يا أشخاص ضدك ومطال وحاسكله ولي الأمر أسكت فإن دعوة إلى الجهاد جهاد في ولا يرى وتجنيد الجنود عيد مدي ولا صورية وتجيد الجيوش جيوش دي أسكت ولا ديارية ودعوة إلى نفر العام من خصائص ولي الأمر ومن مهامه وحيالها ولي الأمر يقول لك هاي يا رميه سمهيمك يا واجباتي بكمل مرقى سمحوين باتفاق من يعتد بقوله من أئمة الهدى اتفاق صبر باتفاق من يعتد بقوله من أئمة الهدى واتفاق الإداس ضمان عدة لا ترسنكر هذا الكيس وأئمة عنهم كملة وأئمة أهل السنة أئمة أهل السنة markay kutubta alifayaan oo kutubta sanifayaan kutubta ay ku qorayaan waxa i'tiqaadka ila i'tiqaada ay waajib tahay waxay ku sheegaan arrinkaas ay gudihiisa ku sheegaan oo musanafaad ku sheegaan arrinka uu jeedana waxa weeye kownu dacwati ila al-jihad min khasa'is wali al-amr jihadka in lagu yeeraa inay kamid tahay khasaa'ista wali al-amr iyo muskari hadalkaas wuxuu ku yaalaa aadka u qiimaadka badan at-tawjihat as-salafiyya fi qadaya al-jihad safhada kow iyo markaas ku qoran وهذا الآدي المرحوم وعلماء مركا إجماع مسألة بصورة كمية باتفاق من يعتد من قوله واتفاق صورة لما العدة التي تنكر هذا الكيدة ومن أئمة الهدى كمية قال عبد السلام بن سالم ابن رجاء الصحيمي الصحيمي قاسي وأستاذ قيب تفقه أيو كلية شريعة في جامعة الإسلامية مركز سكرية تزكية كتابك مركز قري وحاول تقديمي صالح بن فوزان وعبد المحسن آل عبيكان وعط المامي السحيمي قاسي أهل السنة والجماعة متفقون على أن الجهاد موكول للإمام وأنه لا بد من إذنه في الجهاد أهل السنة والجماعة وحي اتفاق وحي كيه ويذكر رعسيه على أن الجهاد موكول للإمام جهادك ومثل الله في شيء إمامك الله في الجهاد وأنه لا بد من إذنه في الجهاد إذا كيسنا إمامك إنه إدبط أو فصحه جهادك فصحه الله غمار بماي سقى الله في شيء إذا كيسنا الله غمار بماي واتفاق صحه أهل السنة والجماعة متفقون على أن الجهاد موكول للإمام وأنه لا بد من إذنه في الجهاد وحكسر يكتاب رياض الجهاد في الإسلام صفحات الطباط هي سقال إلى 60 كتاب وحو تقديمي ومسألة مختار صالح بن فوزان الفوزان وعبد المحسن آل عبيكان قال الشيخ صالح قال الشيخ وعيون وأجمع أهل السنة والجماعة على أن الجهاد ماض مع كل إمام إلى قيام الساعة
waa hadalkani waa hadal kutubta caqaa'idka o dhan iskaga qoran daxaawiyadu ku qoray oo waasidiyadu ku qoray oo maa min kitaabin kutubta caqaa'idka ka mid ah ilaa waa ku qoran tahay jihaadku inuu macooda yahay ulil amriga kuwooda xunxun iyo kuwooda wanaagsan inuu macooda yahay oo iyaga macooda lala jihaadayo kuwooda xunxun iyo kuwooda wanaagsan kitaab caqaa'id ka midi maba jiro ilaa majorati waaba ku yaala saa darteed baa sheekh salix al sheekh wuxuu yidhi waajmaca ahlu sunnati waljamacati waxay ku ijmaceen ahlusunna waljamaca cala ana aljihaada maadin jihaadka waa soconaya maca kulli imaamin buu soconaya imaam kasta maciisa ilaa qiyaami saaca hadalkaa wuxuu ku leeyahay usul sharciya cinda xuluuli shubuhaat kitaabka sariix safxadda soddon iyo afar culimadaasi waxay ka mid yihiin culimada ijmaaca kusoo hortay masalada jihaadka in imaam loo shardinayo oo idankiisa aan lagama maarmay culimada ijmaaca kusoo hortay masalada bay ka mid yihiin waxaan halkaa uga sii gudbaynaa biidni illahi tabaaraka wa tacaala aqwaasha culimada a'imadii mutaqadimiin iyo mutaakhiriinba sheegayay jihaadku inuu ku xidhan yahay imaamka qala cabdullahi bnu imam ibn axmed samictu abi yaqul ida adina alimaam الqوم yأتيهم النفير فلا بأس أن يخرجوا فقلت لأبي فإن خرجوا بغير إذن الإمام قال لا إلا أن يأذن الإمام إلا أن يكون يفاجئهم أمر من العدو ولا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام فأرجو أن يكون ذلك دفعا للمسلمين عبد الله بن الإمام بن أحmed wuxuu yidhi waxaan maqlay aabahay oo leh jihaadka hadduu idmo imaamkii oo qoomka uu u yimaado nafiir macnaa imaamkii ole soo baxa markaa dhibaata kuma jirta inay baxaan markaasaa wuxu yidhi aabahay waxaan ku yidhi fain kharajuu bigayri idni الإimam hadday iska baxaan idanka imaamka la-aantii hadday baxaan imaamkii aan idanka haysan hadday baxaan ka war markaasaa wuxu yidhi la ma baxayaan إلا بإذن الإمام imaamkii idanka haystan mooyaane ilaa an yakuna yufaaji'uhum amru min alcaduwi inuu yahay mooyaane inuu kusoo kediyo arrin xagga cadowga ka yimi cadowgii baa kusoo kediyey walaa yumkinuhum an yasta'dinuu dabeedna waxaa u suurtogeli weyday inay ka idan dalbaan xaalad daari oo deg dega qabsatay cadowgii baa mar qura kusoo kediyey sidii fujaa oo baktatan waxay ka gaadhsiin waayeen markaa inay imaamkii kasoo idan dalbaan oo kasoo idan dalbaan faarju an yakuna dalika dafcan lilmuslimiin kutubta qaarna min almuslimiin bay qoriyeen arrinkaa waxaan rajaynayaa buu yihi inuu noqdo muslimiinta mid laga riixay hadalkaas wuxuu ku yaalaa masaa'ilka cabdullaahi liabihi mujalladka labaad safxadda 258 wuxuu tilmaamayaa hadalkaas imaamka weyne axmed ibn xambal jihaadka inaan la baxay ilaa imaamka oo idma mooyaane waxaa laga soo reebayaa bes xaalad cadowgii kusoo kediyey muslimiintii oo idankii aan laga gaadhsiinay waa istitna xaalad muslimiintii cadowgii kusoo kediyey oo hadday siadaan idan dalba dee cadowgii waddankiiba qabsanayo xaaladda hadda idan laga gaadhsiin maayo waa daruura min baabi daruura wey waa laga soo reebaya ibnu qudama wuxuu yihi raximah llahu tacala fi lmuqni mujalladka 13 صفxadda 16 والأمر الجهاد موكول للإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه ذلك والأمر الجهاد موكول للإمام أرنك جهادك موكول للإمام إمامك الله وكيل إمامك أيا الله وكيل شيء واجتهادي اجتهادك سنين سوى كده دالم ويلزم الرعية رعية يدتك لقى مسؤولك إياه إمامك مسؤولك إياه وحكو واجبا وكلها سميسة طاعته فيما يراه ذلك إن يكون أطيعا فيما يراه من ذلك وحي أرض jihaadka isagaa lagu laazimiyey oo loo wakiishay iyo ijtihaadkiisa isaga xaq le inuu ku ijtihaado arrimaha jihaadka cidina lama wadaagto raciyadana waxaa ku waajiba wixii isagu ka arko inay ku adeecaan ibnu qudama saalim quriga maaha raciyadu inay iyagu arrimaha faraiska la gelayaan maha lakin wixii isagu uu ka arko ayuu ku adeecay saaxib almuxarar majd ibnu taymiya wuxuu leeyahay mujalladka labaad صفحة 700 وحي ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام إلا أن يفاجئه عدو يخشى كلبه ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام إلا أن يفاجئهم عدو يخشى كلبه بالإذن فيسقط ربنا على غزوه إلا إذن إمامكم وياه إذن إمام لقاه يسمويان غزوه ربنا إلا أن يفاجئهم عدو إنه عدو كسو كريم وياه مسلمين cadowgaasoo yukshaa kalaba dhibtiisa iyo sharkiisa laga cabsanayo oo bilidni laga cabsanayo idanka looga cabsanayo intii lasoo idan dalbi lahaa laga baqaya cadowga inu ku qabsano fayasqud markaa waa dhacaya idanka waa xaaladii axmed ibn xambal uu soo reebiyey xaalad markaa cadowgii kusoo kediyey muslimiinta oo haddii la yihahdo idan dalba markaa dhibaatadii cadowga laga baqayo
xaaladaas mooyaane inta kale waxa waajibo in markaasiba idan loogu jihaado. qaala albahuti wuxuu yihi raximah llahu tacala fi kashaafi iqnac wuxuu ku yidhi walaa yajuusu lgazwu ila biidni اlamiiri liannahu acrafu bilxarbi waamruhu mawkuulun ilayh. walaa yajuusu lgazwu gaswi ma banaana duulaankii ma banaana ilaa biidni lamiiri amiirka idankiisa mooyaane liannahu acrafa bilxarbi waamruhu mawkuulun ilayhi. dagaalkii isagaa u cilmi badan oo ogaal badan arrinkiisana isagaa loo wakiisho marka idankiisa mooyaane ma banaano. wasu'ila alcalaamatu moxamed ibnu salix alcuthaymiin raximah llahu tacala baa la weydiiyey ibn cuthaymiin ayaa waxaa la weydiiyey ya sheekh baaraka allah fika ma taquluuna fi fatwa bacdi almucaasiriina annahu ida wajaba aljihaadu facala arajuli an yakhruja wayujahida binafsihi wala calayhi an yantadira xata yakuna hunaka imaamu wayastadilu biqawlihi tacala ويستدل بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك أي الواجب عليك أن تقاتل وحدك ولو لم يكن هناك أمير وجيش وخلافة فما رأيكم بهذا القول وكيف يرد عليه. وعلى وجه ابن عثيمين ورحمه الله تعالى فعلي يا شيخ بارك الله فيك maxaa kaga jawaabaysaan fatwo qayb dadka ka mid oo fatwooday oo mucaasiriinta ah ayaa waxay fatwoodeen jihaadku hadduu waajibo qofka guudkiisa waxa saaran inuu iska baxo oo jihaado lagama rabo inuu sugto oo ilaa inta imaam imanayo oo waxba imanayaan lagama rabee waxaa guudkiisa saaran marka jihaadku waajibo inuu iska jihaado. kaasina wuxuu soo deliishanayaa baa sheekha la weydiiyey qawluhu tacaala faqaatil fi sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsak. wadaadka laftiisaan arki doonaayo sidaa u deliishanaya sidaa iminka sheekha la weydiinayo sidaa lafteeda isagoo u deliishanaya arki doonaa biidni illahi tabaraka wataala. bal sheekha markaa wuxuu kaga jawaabay ibnu cuthaymiin hadalkiisa waxaan kaga jawaabi doonaa ka sheekhu kaga jawaab biidni illahi tabaraka annagu iska jawaabi mayno waxaquman inaan iska jawaabno laakin ahlu cilmiga baa muhima in laga soo raro jawaaba. ibnu cuthaymiin markaa wuxuu yidhi qofka sidaa odhanaya faajaaba sheekh raximah llah ra'aynaa ana allaha yukhadibu alimaam imaama alumma laysa yukhadibu kula waaxidin walihada qala waxarid lmu'miniin wahada arajul ida kharaja biduni idni اlimami kharijun can اljamaca ومخطئ على نفسه خصوصا في عصرنا هذا لأنه إذا خرج وجاهد ثم عثر على أنه من هذه الدولة صار مشاكل بين هذا وهذا. الواجب أن الإنسان لا يأخذ النصوص من جانب واحد وينظر إليها بعين أعور بل الواجب أن يأخذ بالنصوص من كل جانب. ولهذا قال العلماء يحرم الغزو بدون إذن الإمام. تذكير العباد بفتاوى أهل العلم في الجهاد وحد صدر إلى كوب صدر. وحكته أبي بن عثيمين رحمه الله تعالى. وعن ورقنا أبو ilahay wuxuu la hadlayaa subxaanahu wa tacala imaamku la hadlaya marka ayadda leeyahy faqaatil fi sabiili illah jidka ilahay u dagaalan laa tukallafu ilaa nafsak naftaada mooyaane cid kale laguma kalifin. horta khitaabkaasi ku dhacay muxaadirku wuxuu ka daliishaday qof keliya xitaa inuu jihaadi karo. aayaddaa intuu soo qaatay ayuu wuxuu ka xujaystay oo aayadda ka fahmay oo ka daliishaday qof keliya inuu jihaadi karo. intee buu la jihaadi karaa xitaa wax xuduuda uma yeelin. qof buu la jihaadi karaa malla buu la jihaadi karaa muummadan buu la jihaadi karaa muxuu la jihaadi karaa wax hadaloo kale kuma dar. wuxuu yihi qof keliya hadduu jihaadku waajibo waa jihaadi biduuni qayd. qur-aankana maxaa ilahay ku tilmaamay subxana wa tacala alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa. qofka laba nin wixii ka badan qofka muslimka ah laba nin oo gaala wixii ka badan ilahay kuma waajibiyo subxana wa tacala. ilahay waa ka fulayay laba nin waa lagu waajibiyey hadduu u sabri karo inuu u sabro laakiin laba nin wixii ka badan oo gaalo ah ilahay kuma waajibin subxana wa tacala. aayadka suuratul anfaal baa cadaynaya oo qofka markii hore calaamay inuu toban u sabro toban gaal inuu u sabro waa lama. markii arrintii dhib noqotay ilahay waa fudaydiyey dadka muslimiinta waa ka fudaydiyey oo ninkii waxa lagu laazimiyey inuu laba gaal u sabro. ama wixii ka badan miyaa laguma laazimin isna waa iska idlaaqay oo wuxuu yidhi qofka haddii jihaad ku waajibo waa jihaadaya qof keliya. intee buu la jihaadaya toban buu la jihaadaya ma labaatan buu la jihaadaya ma soddon buu la jihaadaya biduuni qayd. marka ibnu cuthaymiin wuxuu leeyahay hadalka aayadda horta faqaatil fi sabiili illahi laa tukallafu ilaa nafsak yuu ku socdaa wuxuu ku socdaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ba ilahay saa darteed ba xagga dambe ilahay wuxu yihi waxarid lmu'miniina mu'miniintana dhiir nebi maxamed. markaasaa sheekhu wuxuu yihi wahada arajul ida kharaja biduni idni اlimaami kharijun can اljamaca. ninka sidaa aaminay ee aayaddaa soo xujaystay ee yidhi jihaadku hadduu qofka ku waajibo idan looma baahno waxba looma baahno waa la iska soconaya qofkaasi wuxuu yidhi hadduu sidaa ku baxo khaarijun can iljamaca jamacadii muslimiinta waa ka baxo
nasal allah alcaafiya jamaacadii muslimiinta waa ka baxay kharijun can iljamaca mar labaad baa sheekhu ku celi jamacadii waa ka baxay wamukhdiun calaa nafsihi naftiisiina waa ku gefi weliba khaas ahaan buu yihi casrigeennan maxaa yeelay qofkaasi hadduu baxo oo dagaalamo dabeedna hadhow la ogaado inuu dawladdan ka yimi labadii dawladood baa isku dhacay oo madax isla gelay ila imaamkii dawladda madaxweynaheedii dagaalkan ma iclaamin qof keliya iska boodi waxaa dhici karta in labada dawlad heshiis ka dhexeeya heshiisku waa shay sharciga ku sugan marka qof keliya markuu iska booday oo dagaalkii aanu imaamkii soo ansixin oo xaggii madaxda aanu ka soo furin waxaa dhici karta hadhow mushaakil inuu soo labadii dawlad dhexdooda oo ballantii madaxweynaha iyo wixii baa isagu buriyo ninkaasi buriyo shaksigaas marka wuxuu leeyahay falwaajibu ana alinsana laa ya'kudu nusuusa min janibin waaxid